رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي الله محمد بن عبد الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الإخوة والأخوات وموضوع يعني مواعظ رمضانية وأنا أقول لي دروستي رمضان كانوا لهين بلان إيمان كنيو إسلام لماذا يعني أن نديبه فيرنا وحلقتني شناد وحن واحد لنا ينا آيات كمذا آياتها إلهي سبحانه وتعالى وهي قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون دتك قف والبؤ بني آدم كمذا وحليها الربطان هي الشهوات هي متطلبات أي نفسدي تضلبنيس وعيبها آتك وحوي إن لو قد دكتون هذا أباهن وحا كمذا baahiyada nafsadaadu ay u baahan tahay iyo waxyaabaha inta badan shahawaadka ah nafsadaadu ay raadinayso intooda badan xaraam weey waati ka dhex muuqatay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin nar bil shahawat wuxuu nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxa way ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu naarta iyo jannada uu sameeyay naartana waxa ku hareeraysan waxyaabaha ay naftu jeceshahay marka waxa weeye hadii waxyaabaha naftu ay jeceshahay xageeda hadaad u dhaqaaqdo macnaheedu waxa weeye dhanka naar baa ka jirta dhan kale nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu lahaa jannadana waxa lagu hareereeyay waxyaabaha ay nafsadu neceb tahay marka macnaheedu waxa weeye waxyaabaha nafsadaadu ay diidayso hadaad ka cararto ogoobo dhanka jannadaad ka sii sikanaysa oo jannadii baad ka sii durgaysa marka waxa weeye waxyaabaha inta ugu badan shahawaadka rabitaanka nafsada waafaqaya oo nafsadu ay jeclaysanayso inteeda badani waxa weeye waxyaabaha xaraamta ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka caroonayo weeye rabitaanka nafsada marka laga anbaqaado waxa la yiraahdaa dadku waa laba qolo waxa la yiraahdaa nafsadooda iyo baahiyadeedii ayay kala joojiyaan oo waxba kala dhex gala intay adduunyada ku nool yihiin qolana waxa la yiraahdaa nafsadooda iyo waxay u baahan tahay adduunyada way isku fasaxan yihiin laakiin aakhira la kala dhex gala oo aakhira nafsadu wixii ay rabtay loo diidaa dadka waxa weeye muuminiinta ah oo mutaqiinta ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsaday rabbina subhanahu wa ta'ala intii adduunyada ay noolaayeen oo xikmad iyo aqli iyo hanuun rabbi subhanahu wa ta'ala ku arsaaqay intay adduunyada nool yihiin bay nafsadooda wixii ay jeclaysanaysay ka celiyeen marka waxa weeye aakhira markay tagaan bay nafsadooda raaxaysanaysaayoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aakhiro ugu talagalay in waxa weeye wixii nafsadooda ay jecladay ku helaan ulaa'ika hum almuttaquun almu'minuun المحافظون لحدود الله جل جلاله قيبت لبادة بني آدم كوا أن إلهي كعب سنين وحوى انت الدنيا كله ليهن اسكد داقا والربيتان كودا الشهوات كودا اسكد بكعة ومرنا بوحوى أدون لماذا إلهي أدون وهايين آن العلنين ونفسده ذا وحوى وحي عيراده يعني واي كوانا وحالة إلى الدنيا أي شهوات كودا أي الربيتان ذا أي باهدا نفسده ذا وجا جوابان آخر مرة يتجان نفسده ذا وحي جعشها يودم بالجوه الجيا علماء وحيليه دتك مؤمنين تا دتك أهل الفسق جاي أهل الكفر جاي أهل الفجور كاب الدنيا ذا أنت جوعان فرق وده حياة وحوي مؤمنين توحيليه وازع ديني وحوي على كعب سبا علينيه إيمانهم بالجنة والنار بعلينيه
وحوي مكافأة ذي وحوي نعمة ربي سبحانه وتعالى وقلي إني وحوي وجد جوابان حمان يا معصية يا قالنما يا كفري أي علينا يسوء تاسبا قدار جيليسا لذلك يقال عندهم وازع ديني وازع لك عبسي أنا وازع وحارة وحقفك عليه ومركو حمان كنت الله بسن رب الجوج يرادا أي وازع ليرادا تذكر مركب مؤمنين تا متقين تا إلهي سبحانه وتعالى كعب صداهي وازع ديني بيليه إن الدوميهين بيمروا بحسوسيهين كنا النار بيمروا البيشة كوهيان لذلك بين نفسده وحي جعشة الدنيا ذا كحكميان سياني بوتك النار توترين أو حوايه حيندابك النار تايسن أقلين وحوايه آخره أي جعله إليه سبحانه وتعالى يرضيه سهلان ربنا سبحانه وتعالى النعمان لما الله وكو أبال مريو وهنكو ذا سرية وازعوا الدين قابا ورنا يا الدنيا ذا هالدورنين يا آخرة دورتا أما قو أهل الفسق جاي أهل الفجور كي أهل الكفر جاء kuwa waxa la yiraahdaa iyaga waasic diiniga ba ka maqan maadaama aanay waasic diini lahayn sida aawadeed wax celiya oo xumaanta ka jooga yiraahda malahan aakhira ay xusuusanayaan ma jirto jannada naar ay xusuusanayaan ma jirto gaafiliin weeye waxa weeye way iska socdaan waxa weeye takhaddigooda iyo qaabkay talaabada u qaadanayaan cashwaai weeye meeshay doonaan bay lugta dhigayaan weelkay doonaan bay gacanta gelinayaan kuwa waxa yiraahdaan culimadu وازع الدين أيوم بكلمي ماشي أنا مركنا الملاحظة وحوي وحيل بينهم وبين ما يشتهون ضدك ولا بمدو أما الدنيا ده أيوم بشهوده ده يجعل لك لنحق ليا والدنيا ده أيوم بمحي شهوده ده يعني إيش أيوة أما وحوي آخره أيوم وحوي شهوات كودية ربيتان كنفسده ده أيوة ضدك بني آدم كلامه خيار أيوم بهرت الله dadka muuminiinta Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay aqeedo diimeed iyo manhaj diimeed oo adduunyadooda iyo aakhiradooda u jamcinaya inay adduunyadana baahiyadoodii iyo rabitaanadoodii qadar ku gutaan waxa weeye muharramaadka iyo manhiyaadka iska ilaaliyaan آخرنا أي شهوات كودي ولما يسترن يرغبتان له وح على روحي مسكحه ذكوسه دعاء هلان أيوم ربي سبحانه وتعالى منهج طريقة نوع عاصية كوها جاي ربي سبحانه وتعالى وسود الجي لذلك إني هبينك قيب كم إذا هردة يسكد دايان وأي شهوده ذي هردة قيب كم إذا حكميان وحيكون بدلنا وحوي إني آخره وحوي ربيتان ذي نفسده هذا ولما يسترن هلان إني مالمها قار صومان وأي مالمها قار ربيتان كي عنتدي عبيتان كعلوش ودربني سيجوشيان أيوم بيحكوا بدلنا إني آخر شهوات كودي ربيتان ذودي ولما يسترن هلان إني الدنيا الدور صدان وأي فرج جودي شهوات الجنس جامل حرام أي كإلاليان ويعني دور صوني يتعفف يعني أي قاتان أيوم بيحكوا هذين يعني ربي سبحانه وتعالى رالي جليان وأي آخره شهوات كودي باهية ذودي ولما يسترن هلان سيدا أولاد بعضك مؤمنين تاهي يجو الدنيا قريب كم إذا ربيتان ذودي كقاطع هذا أنت شرع جوفة صاحبه ولا شيء ذاي لكن ربيتان ذي بحد بدنا أو فرح بدنا أو حوي نفسه ذا يدلبني سي الدنيا كحكمي أيوم بي آخرة جان بركة آخرة جان بعمرك وحوي نفسه ذا هي الشهوات كذي الله يصب النياي ولا قد حوريجا أما قيبت اللبعاد بني آدم كفرك إيه شركك إيه شهواتك إيه فسقك إيه محال رجري معاصي للنول قليها وحالي هذا إيجا وازع عليه مجره الدنيا ذا أيوم بيوحويه يعني إسكت داقان آخراء إيجا وحويه اسمه ويديان وحبدا كما فكران يعني نباها إيه سوجيد إيه الدرين إيه يقله أي آخراء جنية النار فكرانه هبايرات مجره سيدا أوديت بالي هذا إيجا أنت يدونك جوغان بشهوات كودا إيه ربيتان ذا لغف الصحة markay aakhira tagaan ayun baana nafsadooda iyo waxay rabtay la kala dhex galaayo aakhira wax walbo nafsadooda ay jecel loo diidaan lidalika yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kuwaas waxa weeye jahannama ayun ba hoy u ah waxa weeye كربا وحي مدنيهين آخر الجزء ذي أول مرين تودتاي إن عذاب الله قصد داديو ظالمين تنسيد أصبانو أول مرينا أيوة يا رب سبحانه وتعالى سرت عن ربينا الآيات كم وجيا وحوي وحان ربينا وحير ملاحظة إن نفهمنه صوابت
iyo sirta rabbi subxaanahu wa tacaala uu janno iyo naar u sameeyey waxay ku kooban tahay sirtaasi jannaduna waxay abaalmarin u tahay dadkii markay adduunyada joogeen shahawaadkooda iska xakameeyay oo dariiq xaraam inay shahwadooda ku gutaan nafsadooda ka celiyay oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu siiyay waasic diiniya oo iyaga iyo shahawaadkooda adduunyada intay joogaan kala dhex gala jannaduna naartuna iyana waxay abaalmarin u tahay kuwii intay adduunyada joogeen iska fasaxnaa oo iska dabar furnaa oo shahawaadkooda aan u aaba yeelaynin oo meel alaalaya meeshii waxa weeye nafsadooda uga yeertaba ajiibay oo aadayay kuwaas bay abaalmarin u tahay lidaalika rabbi subxaanahu wa tacaala adduunyada dadka uu ku abuuray qaybna waxa weeye jannu ku abaalmarin doona aakhiro qaybna waxa weeye abaalmarintoodu cadaab iyo naar buu noqon doonaa ciyaadan billah micnaha ka dambeeya inuu dadka qaar abaalmarintooda aakhiro ay janno noqoto kuwana ay naar noqotona waxa weeye kuwana intay adduunyada joogeen ayay addoonnimadii rabbi subxaanahu wa tacaala addoonsaday guteen ay ka soo baxeen kuwana intay adduunyada joogeen bay addoonnimadii rabbi subxaanahu wa tacaala u addoonsaday ay iska filqeen oo ay dayaceen oo addoonnimadoodii ay gudan kari waayeen masalada cubuudiyadana culimadu waxay yiraahdaan waxa lagu koobaa الاتيان بالمأمورات والاجتناب عن المنهيات ومثل يعني معنى التقوى وحيدهن وحوي الله كعبس بيلمي تهاي وحلوله جدا إن أدونك وحي ربي سبحانه وتعالى وأمرنا وكسب بحوينته الدنيا تشوجه وحي ربي سبحانه وتعالى وكحر نمينا وحوي إنه نفسدي سكايل عليه أو نفسدي سكحكمايه عبودية مركب معناها سبيله هاي aayadda marka waxa weeye sayaaqa ay ku jirtay marka quraanka soo akhriso waxay ka hadlaysay dadka aakhira ka shakisan oo waxa weeye iimaankooda shakigu ka jiro laakiin kuwa oo kaliya ma muujinayse aayaddu dadka muuminiintaana waxay faraysaa adduunyada mar intay joogaan inay sabraan shahawaadkooda inay ka sabraan daacaadka iyo alla ka cabsigana inay ku sabraan nafsadooda iyo shahawaadka intay adduunyada joogaan inay kala dhex galaan si ay aakhiro shahawaadkoodii iyo nafsadoodii yani wixii nafsadooda ay dalbanaysay ay aakhiro uga helaan waxaan marka rabaa inaan dardaarmo waxa weeye qof walba oo muumina oo muslima inuu dib isu xisaabiyo inuu waxa weeye ka fakara laba arimood ma waxaad ka mid noqonaysaa dadka adduunyada intay joogaan addoonnimadoodii gutay oo addoonnimadooda ka soo baxay mise waxaad ka mid noqonaysaa dadka rabbi subxaanahu wa tacaala ku caasiyoobay oo adduunyada intay joogeen cubuudiyada iyo addoonnimadii iska filqay marka kadibna qof walba muslima waxaa la gudboon inuu ka fakaro aakhira marka tagto abaalmarintaadu ma janna ay noqonaysaa mise abaalmarintaadu waxa weeye يعني النار بين نقونيسا نينكي غبيايي wuxuu noo tilmaamay in waxa weeye adduunyada oo aad shahawaad yar yar ku qaadataa inaan micno badan aanay ku sameynaynin wakiilaha waxa weeye tafna alladadatu mimman nala safwataha min alharami wa yabqa al-ithmu wal-'ar tabqa 'awaqib su'in fi maghabbatiha la khayra fi ladhatin min ba'daha an-nar wuxuulaha adduunyada inta joogto aad shahawaadkaaga dariiq yar xaraama ku qaadato aakhirna ay naar ka dambayso waxba micno ku sameeymayso وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة وجزاكم الله خيرا والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك